qaaruun ayaa ilaahay u furay adduunkii una barakeeyey xoolihiisii kuna galladay dhaqaale aan tiro iyo xad toona lahayn. wuxuu gaaray heer uu ilaaway suhdigii iyo cibaadadii. hantidiisa ayaa gaartay heer qasnadaha ay ku kaydsan tahay horayaasheeda ay qaadaan 70 nin oo xoog waaweyn. marka uu marayo waddooyinka wuxuu iska muujin jiray hantida uu Alle ku galladay, wuxuuna soo bixi jiray isagoo ku labisan dharka ugu quruxda badan, wadaan shaqaalihiisii la socdaan fardo lagu xardhay dahab, hareer socdaanna gacanyarayaashiisii. dadka u dhow meelaha uu marayo ayaa ku riyoon jiray in ay mar uun sidiisa oo kale noqdaan. hantidan iyo adduunkan gacanta loo geliyey wuxuu ka qaaday kibir iyo isla weyni, ilaa uu Nebi Muuse kula taliyey inuu kibirka iska ilaaliyo maadaama uusan kibirka Alle jeclayn. hantidan uu Ilaahay gacanta u geliyeyna uu ku sadaqaysto masaakiinta. qaaruun ayaa si ay isla weyni ku jirto ugu jawaabay, hantidan waxaan ku kasbaday aqoonteyda oo ma aha wuxuu Alle igu galladay. markii uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku soo dejiyey Nebi Muuse xukunka sakada, maadaama qaaruun uu ahaa ninkii ugu hantida badnaa, wuxuu u sheegay Nebi Muuse inuu ka bixiyo xoolihiisa sako, isagoo u sheegay in 1000 diinaarba uu 1 diinaar ka bixiyo, sidoo kalena 1000 dirham uu 1 dirham ka bixiyo, xoolahana sidaas oo kale 1000 neefba uu 1 neef saka ahaan u bixiyo. qaaruun ayaa markii uu xisaabiyey sakada ku waajibtay wuxuu arkay in xoolo badan laga sugayo oo ay saka ahaan u baxayaan, mana jeclaysan in xoolahaas intaas leeg bixiyo. kadibna maalqabeennadii kale oo ay habeenadii wada caawin jireen ayuu ku yiri, Muuse wuxuu idin amray amro badan oo waad adeecdeen. maanta wuxuu u soo dhigtay hantidiinnii oo wuxuu rabaa inuu qaato. maxaan sameynaa? waxay dhaheen, adiga ayaa inoogu weyn, wixii aadna amartid ayaynu samaynaynaa. kadib inta fikir ayuu yidhi, waxaan keenaynaa haweeney, waxaynu siinaynaa xoogaa dhaqaale ah, kadibna waxaynu dhahaynaa ku been furo Nebi Muuse calayhi salaam oo dheh wuu iga sinaystay. qaaruun ayaa haweeneydii loo keenay, kadibna wuxuu siiyey 1000 dirham, 10 diinaar iyo xoogaa dahab ah.